Jamie Gins, Joao Pedro, Palmer, Joao Pedro, it's three, and Chelsea are running away. Palmer, City's boy is Chelsea's man. Enzo Fernandez, That is world class. iyo Caicedo. Inside his own half. Oh, boys, it's Caicedo. Seasonkii ugu horeeyay kooxda Enzo Moresca waxay ku guuleysteen 2 koob, Club World Cup iyo Conference League, iyagoo markaa ku garaacay 3-0 kooxdii markaa ku guuleystay Champions League PSG. Finish is almost a carbon copy. But the chummy. sanadooyinkii ugu dambeeyay Chelsea waxay ahayd kooxaha hoos loo dhigay isla markaana laga shakiyay, laakiin Enzo Moresca waqtigiisa waa cusub ayaa u bariyay Chelsea. I've been really impressed, like you said, with the ball, but also without the ball. The way that you guys have a really defined shape. mar waa baasi farshaxan ah, marna waa weerar degdeg ah oo dilaa ah. dadku waxay malaynayaan jahwareer, balse waa qorshe xeeladaysan. Joao Pedro usbuuciisii ugu horeeyay kooxda Chelsea wuxuu la qaaday Club World Cup-ka isagoo u dhaliyay 3 gool ka hor inta aanu xitaa garoonka tababar fiican ku qaadan. And intensity, that's what Joao brings. He's obviously an exceptional football player. He is all or nothing, Joao. He's exceptional football player. Premier League-na 3 ciyaarood ugu horeeyay wuxuu ku lug leeyahay 4 gool isagoo u dhaliyay 2 gool isla markaana waxa uu 2 gool, taasoo ku maqan yahay ciyaaryahanka iyo xidiga kooxda Chelsea Cole Palmer. Enzo Moresca seasonkiisii ugu horeeyay 2 koob ayuu qaaday kooxda Chelsea, waa horumar aysan gaadhin macallimiinta badankooda. kooxda cusub ee Chelsea ma aha kooxaha Premier League inay u diyaar garoobaan oo keliya, waa in ay kooxaha Yurub dhammaantood gaashaan iyo diyaar garow u galaan.